bismillahir rahmaanir rahiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa channelka xulashada wararka oo idin soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka waa jimco ay taariikhdu ku beegan tahay 4 bisha 9 September sanadka 2020 qodobada wararka maanta idin heena kuwooda ugu waaweyn waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay Axmed Madoobe iyo Dani oo shuruud cusub ku xiray la kulanka madaxweyne Farmaajo iyo Villa Soomaaliya oo qarka u saaran inay go'aan lama filaan soo saarto beesha hawiye oo madaxweyne Dani ka dalbatay inuusan heshiis la gelin Farmaajo inta uu ka soo magacaabayo ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo si la yaab leh u sheegay in dalka uusan u baahnayn wax ra'iisul wasaare ah inta uu shaqada wada taliyaha Nisa ee Fahad Yaasiin faahfaahin kala duwan oo ka soo baxaya gudoomiye lagu dilay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan iyo kooxdii dishay oo weerar kala kulantay booliiska magaaladaasi iyo wararkii ugu dambeeyay dad shacab ah iyo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab oo ku dagaalamay qaybo kamid ah gobolka Mudug waa hagaag daawadayaal intaas daawateen waxay hayeen qaar kamid ah qodobadeena wararka maanta kuwooda ugu waaweyn imkan ku soo dhawaada iyagii oo intaas ka faahfaahsan haddii ay tahay booqashadaadii ugu horeysay channelkeena YouTube-ka xulashada wararka waxaan ka dalbanaynaa inaad subscribe noo saarto aad gambaleelka furato si aad u hesho xogaha iyo wararkii ugu dambeeyay ee halkan aan soo gelin oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka waa jimco maanta jimco wanaagsan daawadayaal markale ku soo dhawaada wararkaas aad maqasheen oo intaas ka faahfaahsan waxaana ku bilaabaya maanta wararkii ugu dambeeyay Axmed Madoobe iyo Dani oo shuruudo cusub ku xiray la kulanka madaxweyne Farmaajo xilli Villa Soomaaliya ay qarka u saaran tahay inay markaasi ku dhawaaqdo go'aan lama filaana madaxweynayaasha maamulada Jubbaland iyo Puntland Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo Saciid Cabdullaahi Dani ayaa shuruud cusub ku xiray kulankii la filayay inay la qaataan madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo warar dheeraad laga helayo sida ila wareedyo lagu kalsoonaan karo ay inoo xaqiijiyeen labada madaxweyne ayaa sheegay in aysan markaasi kulan la qaadan doonin madaxweyne Farmaajo haddii aysan kulanka qayb ka ahayn madaxweynayaasha Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo Galmudug labada madaxweyne ayaa si cad ugu sheegay madaxweynaha Soomaaliya inuusan kulankaas dhici karin haddii aysan qayb ka noqonaynin madaxweynayaasha maamul goboleedyada horay uga qayb galay ee saxiixa shirkii Dhuusamareeb 3 maadaama ay doonayaan in qodobadii laga soo saaray ee shirkii Dhuusamareeb 3 wax ka bedel weyn lagu sameeyo go'aankan cusub oo ay qaateen Axmed Madoobe iyo Dani ayaa laga yaabaa inuu dib u sii dhigo kulankii la filayay inay la qaataan madaxweyne Farmaajo si looga wada heshiiyo qaabka ay noqonayso doorashada dalka ka dhici doonta sanadka 2020 kulankan ayaa horay u baaqday habeen ka hor kadib markii ay shuruud ka timid Jubbaland oo ku saabsan arinta gobolka Gado oo ah in dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay gobolkaasi ka soo saarto ciidamada aad ku faraha badan ee booliiska haramcad ka tirsan ee halkaasi la geeyay si uu u furmo wada hadalka ee u dhaxeeya Jubbaland Puntland iyo madaxweyne Farmaajo balse haatan waxa soo shacbaxaya shuruudo cusub oo ay Jubbaland iyo Puntland ku xirayaan la kulanka madaxweyne Farmaajo waana inay shirka ka soo qayb galaan ama kulankan ay goobjoog ka ahaadaan Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo Galmudug madaxdooda si kastaba ha ahaatee Villa Soomaaliya iyo madaxweyne Farmaajo ayaa ku wareersan go'aamada kala duwan ee ay soo jeedinayaan madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo Muqdisho ku sugan iyaga oo abaabul siyaasadeed ka wada magaalada caasimadda ee Muqdisho madaxweyne Farmaajo ayaa laga yaabaa inuu go'aan lama filaan ka qaato kulanka uu la qaadanayo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland kaas oo wax u dhimi kara doorashada dalka ku soo wajahan 2020 oo si aad looga digay in dib u dhac markaasi lagu sameeyo dhinaca kalena beesha hawiye ayaa madaxweyne Dani waxay ka dalbatay inuusan heshiis la gelin Farmaajo inta uu ka soo magacaabayo ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid iyo Senator Muuse Suudiye Laxow oo markaasi kamid ah siyaasiyiinta ugu waaweyn ee ka soo jeeda beelweynta hawiye ayaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxa ay ka dalbadeen in uusan heshiis la gelin Farmaajo inta madaxweynaha Soomaaliya uu ka soo magacaabayo ra'iisul wasaare cusub kaas oo bedeli doona Xasan Cali Khayre labada senator ayaa faahfaahin waxay ka bixiyeen sida madaxweyne Farmaajo uu u magacaabi lahayd ra'iisul wasaaraha cusub oo beesha hawiye ay leedahay waxayna Saciid Dani weydiiyeen inay heshiis la gaarayaan madaxweyne Farmaajo iyadoo aanu magacaabin ra'iisul wasaare Senator Muuse Suudi ayaa si qayaxan u sheegay in madaxweyne Farmaajo uusan xal ka rabin dalkan
uuna tuhunsan yahay inuu dalka ka socdo heshiis aanay beesha hawiye qayb ka ahayn isagoo soo jeediyay in doorashada la soo dedejiyo ama aan heshiis laga gelin iyadoo aysan xukuumad dhisnayn. madaxweynaha Puntland Siciid Dani ayaa sheegay in uu isagu qabay in marka hore la dhiso xukuumadda isla markaana aanu islahayn in xukuumaddii oo aan dhisnayn la tagayo shirkii Dhuusamareeb 15 Agoosto isaga oo waqti ku bixiyay arrintan balse uu arkaa inuu kaligiis ku yahay arrintan sidaasina ay la noqotay in beeshii lahayd aysan rabin. madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa imika waxa uu ku sugan yahay magaalada caasimadda Muqdisho waxa uuna markaasi ku rajo weyn yahay inuu la kulmo madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay markaasi doonayaan isaga iyo madaxweynaha Jubbaland inay Farmaajo kala hadlaan in wax ka bedel lagu sameeyo shirkii Dhuusamareeb 3 kaas oo markaasi lagu go'aamiyay nooca doorasho ee dalka uu gali doono dhamadka sanadkan iyo horaanta sanada 2021. markaana waxaynu eegeynaa hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waxa uu sheegay in dalka uusan wax ra'iisul wasaaraha u baahnayn inta shaqada uu sii wado taliyaha hay'adda NISA ee Fahad Yaasiin. siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa si toos ah u iftiimiyay doorka uu qaadanayo taliyaha hay'adda nabad sugidda Fahad Yaasiin Xaaji isagoo ku tilmaamay inuu la mid noqday Maxamed Cali Samatarkii oo Maxamed Siyaad Barre xilkan hore ugu magacaabay. qoraal weerar ku ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aan weli magacaabin ra'iisul wasaare cusub ayuu ku yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur doorashadii Hirshabeelle waxaa lagala hadlayaa taliyaha nabad sugidda xalka Gado waxaa ka xaajoonaya madaxweynaha Jubbaland iyo taliye Fahad waxaa kulmay madaxweynihii hore iyo Fahad madaxweynayaasha maqan waxaa raadinaya Fahad Yaasiin horta siihayihii aawi mise waa maqaar saar maxaase ra'iisul wasaare looga baahan yahay mar haddii uu howlahan wado taliyaha nabad sugidda ee Fahad Yaasiin. wuxuu intaas ku daray Cabdiraxmaan Cabdishakuur inay tahay in ra'iisul wasaare loo magacaabo Fahad Yaasiin mar haddii ay hore u dhacday ma wiilka xilka loo magacaabo ileen xaajo ugub ah ma aha oo hore ayaa Maxamed Siyaad xilkan ugu magacaabay Maxamed Cali Samatar oo beesha shanaad ah beesha sugaysana dacwadii ayaa ka dhamaatay hal looga faataxeeyo ayuu qoraalkiisa sii raaciyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo isagu markaasi si cad u sheegay in dalka haatan uusan u baahnayn wax ra'iisul wasaare maadaama howlihii loogu talagalay siyaasiyaha ra'iisul wasaare Mahdi Guuleed uu haatan gacanta kula jiro Fahad Yaasiin oo ah taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya waxaana Fahad Yaasiin lagu xantaa in uu markaasi qayb ka yahay milkiilayaasha siyaasadda Soomaaliya. dhinaca kalena waxaa faahfaahino kala duwan laga helayaa gudoomiye lagu dilay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Allah u naxariistay waxaa magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan lagu dhex dilay gudoomiyihii deegaanka Hees Cabdullaahi Bilig koox hubaysan ayaa marxuumka ku dishay xaafadda Xawtaako ee magaalada Beledweyne kuwaas oo mid laga dilay qaarna waa ay fakadeen sida ay noo xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ciidamada booliiska ee ka howlgala magaalada Beledweyne ayaa durbaba gaaray goobta uu dilku ka dhacay waxaan halkaasi ay ka bilaabeen iska horimaad dhex maray ciidamada iyo kooxdii dishay gudoomiyaha deegaanka Hees. inta la xaqiijiyay hal qof ayaa laga dilay kooxdii hubaysneed ee dishay gudoomiyaha waxayna ku dagaalamayeen bomba gacmeedyo iyo qoryaha fudfudud. ciidamada ayaana weli xaafadda Xawtaako ka wada howlgallo lagu baacsanayo kooxdaas sida ay soo sheegayaan saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka ee magaalada Beledweyne. deegaanka Hees ee uu gudoomiyaha ka ahaa marxuumka la dilay ayaa hoos taga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. laamaha ammaanka magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa weli waxaysan ka hadlin dilkaas iyo iska horimaadkii ka dambeeyay ee ka dhacay xaafadda Xawtaako ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. geesta kalena madaxweynaha maamulka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa waxa uu kulan la qaatay madaxweynaha dalka Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele. kulankan oo ka dhacay qasriga madaxtooyada Djibouti ayay madaxda uga wada hadleen arrimo dhowr ah oo ay kamid yihiin iskaashiga dhinacyada horumarinta dhaqaalaha ganacsiga iyo amniga. madaxweynaha Galmudug waxa ku weheliyay shirkan wasiirada amniga arrimaha gudaha gaadiidka iyo mas'uuliyiin kale. dhinaca kale waxaa madaxweynaha Djibouti isagana kulankan ku wehelinayay wasiirka arrimaha gudaha wasiirka gaadiidka maareeyaha guud ee dekedda Djibouti iyo danjiraha Djibouti u jooga Soomaaliya. madaxweyne Qoorqoor ayaa isagu gaaray magaalada Djibouti ee dalka Djibouti halkaasi oo u tagay arrimo la xiriira dhismaha dekedda Hobyo. ugu dambeyntiina waxaynu eegeynaa wararkii ugu dambeeyay dad shacab ah iyo dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab oo ku dagaalamay qaybo kamid ah gobolka Mudug. ururka Al-Shabaab iyo dad shacab ah oo hubka qaatay ayaa mar kale ku dagaalamay tuulada Shabeelow oo u dhow magaalada Bacaadweyn oo ku taala qaybo kamid ah gobolka Mudug. labada dhinac ayaa waxa dhex maray dagaal kooban
laakiin hadda waxay isku abaabulayaan deegaanka gudihiisa iyo dibadda ee dadkii dagaalamay sida ay sheegayaan wararkan ka helayno dadka deegaanka ah ee ku sugan deegaanka lagu dagaalamayo ee tuulada Shabeelow oo u dhow magaalada Bacaadweyn. ururka al-shabaab ayaa lagu soo waramayaa inay ka baxeen tuulada oo ay hadda ku sugan yihiin banaanka iyadoo laga cabsi qabo inay weerar markaasi ku soo qaadaan shacabka waqti kasta maadaama dagaaladii hore ee khasaare lagu gaarsiiyay al-shabaab sida ay sheegeen dadkii la dagaalamay al-shabaab. deegaanka ayaa dhawaanahan waxa ka socday dagaal culus oo u dhaxeeya dadka deegaanka ah iyo shabaab kahor inta aysan ciidamada Galmudug iyo kuwa xoogga dalka ku biirin dagaalka dhinaca dadka tuulada kula jiraan kooxda al-shabaab. wararkii ugu dambeeyay laga helayo Bacaadweyn ayaa sheegaya in xaaladda Shabeelow ay tahay mid yarag degan, waxaana la soo sheegayaa in haatan ay jirto markaasi cabsi ku aadan in mar kale dagaal uu ku dhex maro deegaanka Shabeelow dagaalamayaasha al-shabaab iyo dadka shacabka ah ee iyagu iskood isku abaabulay isla marhaantaana doonaya inay iska caabiyaan weerarada uga imaanaya dhaqdhaqaaqa al-shabaab. waa hagaag daawadayaal wararkii oo maanta Jimcaad kala socoteen channelka xulashada wararka intaas ay ku dhan yihiin. wararkan warar la mid ah saaxiibada aynu jecelnahay intaan mar kale ku wada kulmi doono dhammaanteen oo isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo amaana Allah.